بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لهانتين بداودياشي قيمها هي قدرينتا naga mudano waxaad ku soo dhawaataan telefishinka madaxa banaan ee Raya TV. waxaynu soo gaarnay daawadayaal hadaha nooga barateen inay soo tabino warar wixii dalka daafaha caalamka naga soo gaaray. warkaadu Allah awood la yiraahdo waxay soo tabin doontaa anigoo Shukriye Cabdi Cabdilaahi. aan ka hormaro qodobadeena warka ugu doorka roon leh habeenkii caawa. taakuleynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa ay deeq raashin gaarsiiyeen dadka abaaruhu saameeyeen ee ka soo barakacay bariga Soomaaliland. xukuumadda Soomaaliland oo dhagax dhigtay dhul ay leeyihiin dadweynuhu oo ka yaala magaalada Boorama. wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani. daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo qodobadaas waxay ahaayeen kuwa ugu doorka roon leh habeenkani caawa wararkaan idin hayno. haatana daawadayaal waxaad u diyaar galowdaan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. taakuleynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa ay deeq raashin gaarsiiyeen dadka abaaraha ka soo barakacay ee bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo faalada warkaasi noogu faahfaahinayo wariyaha Axmed Diiriye Ciiltire. guddiga taakuleynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Soomaaliland ayaa waxay deeq mucaawino oo kala duwan ay gaarsiiyeen kun qoys oo kamid ah dadkii iyagu ka soo barakacay deegaanada abaaraha baani ay halakeeyeen ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland kuwaas oo guud ahaanba ku soo barakacay deegaano ka tirsan degmada Dila ee gobolka Awdal. guddiga abaaraha oo weheliyo maamulka gobolka Awdal ayaa deeq mucaawino oo ka kooban bustayaal baco iyo raashin kala duwan gaarsiiyay dadkaas ka soo barakacay abaaraha bariga Soomaaliland. mas'uuliyiinta guddiga abaaraha iyo ka heer gobol ayaa guud ahaanba bulshada ugu baaqay in loo soo gurmado dadka abaaraha baani ay saameeyeen. halkan annagoo ah guddidii taakulaynta gobolada Awdal iyo Salal oo weheliyo barasaabkii gobolka gudoomiyihii degmada magaalo cad ayaa waxaan annagu keennay halkan inaan ku bixinno 700 oo bustayaal ah iyo 700 oo timir ah oo kartoon bogosyo ah iyo 700 oo bacood. sida aad arkaysaan inta in leeg waa halka fadhido way gaari weyday. insha Allah hay'ad kale iyaduna dhinaca naga joogto ka bixinaysa raashin. waxa weeyaan intaasaan maanta oo dad walaalahooda ay ugu tabaruceen oo reer Awdal iyo reer Salal ay ugu soo tabaruceen ummadda abaartu ay keentay soo guurtada. insha Allah wixii kale aan helana waan keeni doonaa. waxaan ummadda ugu baaqaynaa oo dawladda Soomaaliland ugu baaqaynaa hay'adaha madaxa banaan iyo kuwa maxay haydaan dawladda maxamedaniga aan wadaniga ugu baaqaynaa. ummad ilaahay baa wax u qaban kara laakiin in loo soo dadaalo waxa ugu daran in ay bustayaal iyo bacahan iyo macal raashin intaba way u baahan yihiin. bankii waxa weeyaan wajaale ka shisheeyay xadka waxaan joognaay ilaahay wax ka baryayna marka hore roob horu yar waa kan barasaabkii oo ballaaran ilaahay noo lisay ilaahay ka baryayna. halkani waa degmada magaalo cad waa magaalo cad iyo galbeed dhexdooda barkii ku yaalay weeye waa xuduudda Itoobiya iyo degmada oo barayo iyo u dhaxaysa magaraysa magaalo cad. waxana taageero iskaashanay hay'ad iyaduna rag siniin oo qaybinaya raashin isugu jira bariis iyo sokor iyo waxyaalo noocaas. haddaan helin waxa qadi lahayd kala badh baqadi ilaa 600 oo qoys iyo qadi lahaa iyaguna waxay wadaan 400 oo qoys bay wadaan oo raashina. marka waxaan leenahay dibadda taageerada ka taagan
وقوب كليا وعقول يدور بقول سكوت في الضي وبن بلارة ورنس كباهيو حتى إثيوبيا هي حتى خلي لبدا بو الدقي وحلانا هاي إلهي رب كبرنا على مستيك الرأي بريات عضهم بدينه تذكرها اللي سوق المدو waxay doonayaan ilaahay u baqafeen kara wax bili aadan kafeen kara kama arkayno waxaan leenahay waxay nagu waajiba taakulayntii bili aadanimo haday dawladda tahay haddii ay tahay hay'adaha deeqsiga haddii ay tahay dadkii gobolada dibadda iyo gudaba waxay joogaan dadkaasi wuxuu u baahan yahay biyuu u baahan yahay dhaxanta wuxuu iska weyn u baahan yahay lubi buu u baahan yahay dawo caafimaad buu u baahan yahay tuxoolaad baa loo baahan yahay intaaba waxay ka sugayaan ilaahay uun baa gafayn kara taakulan bili aadanimay sugayaan walaalahood bay ka sugayaan halkaa aan joognaan maanta u mahadnaqaynaa waxa weeye xadkii dawladda Itoobiya Soomaaliland u dhaxeeyay waxa weeye maanta ummadii halkaasay gashay iyaguna ummadoo dhan way ku jabtay iyagana waxaan baa ku diraynaa ummadda walaalihiina ee soo gashay taakulo wixii aad u karaysiin waqta ummaddaasi maanta xaalkeeda ilaahay un baa yaqaana waliba aan qayb ahayno intii kale imika dhinaca xadka Itoobiya u talaabeen qaarkoodna ay fog yihiin deegaamada gobolka Awdal ku fog yihiin runtii dadka waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddida abaaraha ee heer gobol ee gobolka Awdal oo runtii kaalin firfircoon kaga jirtay ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta kaalin firfircoon kaga jirta waxaan doonayaa halkan wasaaradda caafimaadka iyo xooluhu inay si fiican uga howlgalaan waan dadku u jeedinayaa sida odayaashu sheegeen dadkana baahidooda ilaahay un baa ka fay kara waa bilow weli ma intaanu taaganahay ilaa 10 gaar 20 gaar waa soo istaagaysa intaanu taaganahay in baaqa waxaan dadweynaha reer Awdal ee goobta runtii gobonimadooda ay dadkii soo guuray aad uga mahadcelinayaan siday u soo dhaweeyeen aan aad uga mahadcelinayaan siday maaragtay qaadaan ku ururiyeen ee dadku ku soo gurmanayaan waxaan waa wixii laga keenay reer Awdal meel kale kama iman waxaan rajaynaynaa inay dadka reer Awdal weli aanay nasiino inama nooma taalo guddida heer qaran ee abaaraha waxaan ka codsanaynaa inay kaalintooda buuxiyaan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay dhagax dhigtay dhul ay leeyihiin dadweynuhu oo ku yaala caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama sidoo faalada warkaasi noogu faahfaahinayo wariyahayga Cali Ismaaciil Aare Cali Waaheen waxa muddooyinkan dambe ay soo taraya dhagax dhigyada ay xukuumaddu u sameynayso dhismayaasha xafiisyada dawliga ay qaarkood ay yihiin dhul mulkigooga ay iska leeyihiin dadweynuhu waxaana arrimahaasi ka marakacaya kadib socdaalkii uu madaxweyne ku-xigeenku ku tagay gobolka Awdal ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faadax Cadare oo kamid ahaa wasiirada socdaalkaasi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenku oo dhagax dhig u sameeyay dhismo cusub oo xafiis ay yeelan doonto wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal dhagax dhigan oo ay wasiirka ku weheliyeen madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale haddaba waa kan Suldaan Roble Xasan oo ahaa xildhibaan hore ogolaha deegaanka ee degmada Boorame oo ka hadlaya arintaasi isla markaana u soo bandhigay warbaahinta dokumentiga lahaanshaha dhulka ay xukuumaddu oo dhagaxa dhigtay halkan jagooyin badan baa ahaayoo booliisku leeyahay dabadeedna waa laswayso waxa weeye saldhigga la soo durkiyay nasiib wanaag jagadaydu way ka hadhay halka siraad cili Allah u naxariistee madaxweyne ku-xigeenku uu celiyay lacagteedii 12,000 baa laga baxshay aniguna xuquuq waxaan u leeyahay taa wixii laga bixiyey in la celiyo anigoo u aqoonsan inay dhul dawladeed ku dhowdahay laakiin waxay la mid tahay un dhulka dawladda ama lagu jiro ee guryaha ama la dhistay ama jagooyin ahaanta loo haysto umaan jagada ka mid tahay muwaadiniinta Boorama uun baan ka mid ahay sida kuwa loogu celiyay leeyahay celiyo xaq waan u leeyahay haddii dan guud lafteeda looga baahdo sida taa loogu celiyay leeyahay celiyo ama xaq u leeyahay haddii si dawlo baahiya la nooga wada qaadana dadka inaan ka mid ahno waa la qaaday wixii sidaa isku awaad arkaysa 10 talaabo u dhaxeeya midna lacag siiyo dawladda xafiisyo ay leedahay oo dhagax dhigo way sa dhacday waxa halka raggii booliiska ah jagooyinka lahaa ee halka ku lahaa way joogaan nasiib wanaag iyaga waxa ku dhacay saldhiga ku dhacay taydu halkaasay ku soo hadhay dhagax halkan 3 lawd baa igu rognaa iyo 2 lawd oo ciida
dadku way wada ogaayeen jagadii rooble inay tahay sharcigiina waa kaas wasiirkii arrimaha gudaha ha loo fasaxa weeyaan warqaddii u dambaysay ee Ismaaciil Yare dawladdiina rayaale waa taasi annaga iyo booliisku run ahaantii galin baan isku maxay haydaanay warday haddii dan guud loo qaadayo ama ay area booliis tahay dee sidaa kuwa loogu celiyo xuquuqdayda lagu celiyo baan arrintaydu ahayd cid kasta oo dawladda ka tirsan oo jagadayda hunguri ka galo waxaan ogolahay oo keliya nidaamkii loo soo maray jagada jaarkayga ama si mawaadin kale loo maro oo xuquuqda uu leeyahay dalka waafaqsan ayuumaan ogolahay. wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani ayaa waxa uu ka jawaab celiyay eedeymo uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani. wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay hadal maalintii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi oo uu ku dhaliilay gudoomiyahaasi xisbiga kulmiye oo olole ka wado dalka iyadoo abaaro badan ay jiraan oo loo baahan yahay in loo gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen bal haddaba dib aan u daawano hadaladii maalintii shalay uu jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro xisbiga wadani مسؤولينتيسو أي شعبي يقول مدان وحيلتها مصبحي مشرع حزبي كلمية وحنا يقدميه برلمانك وحنا مشرح مدحوية دلك كدونية حل باي صارم حل انت صوت هيو ويساريني مواطننا ويساريني هو ضمغنية وحنا الشيء يا شعبي كير سوماليلاند إننا فرينتودي وحزب الحاكم كجابي موسى ما اللي سوى أبارك هذا اليوم ينارك الحكومة لا أراله وسيفدي أي هاي إن كهالله أوارها وحكومة مشغولي إن يسقى ولا ليان وإلين على السعودان وهيرها وكيران ودوس كوصل الريان وهي لا تهاي والله والله يسوي من دونه hadalkani waxa uu ahaa hadalkii maalintii shalay jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro bal haddaba aan daawano jawaabta adag uu ka bixiyay wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani oo la hadlayay warbaahinta oo ka difaacay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye arinta ku saabsan in olole ay ka wadaan dalka iyadoo abaaro baahan ay jiraan hadaladiisi waxa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland عبد الرحمن oo shirkadu qabtay ka warramay in ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee waddanka Kenya ee madaxweynaha Kenya markan waddanka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayi ay ka gaabisay arrinta abaaraha iyo hawsha jirta oo ayagu hawsha qabanayaan waxa ay maanta hawsha ayaana ay tahay ay yidhaahdeen waa siduu hadalka u dhigay olole ay ku jiraan bariga galbeed waxaan jeclahay inaan laba kelmood ka idhaahdo arrintaas sidaad ka warqabtaan haddaad warbaahinta tihiin ama madaxweynaha ama ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiin waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayi amray in ay u baxaan qiimayn hay'adaha OJA ee u qaabilsan coordinationka iyo neerad bishii September qiimeyn ay ku soo sameeyaan xaaladda abaarta halkay marayso ee runtii aan waxba ka jirin
waxsan iyo raad toonna hadalka gudoomiyuhu malaha Nairobi ayaamahan uu joogay wasiiri adugu wax qabanayeen isagii saaxiibadii intaa uu la kulmay oo aan qaarkood wada garayno hore aan ula kulanay qof loo kulanay warku sida u dhigayna ay wax weyn aan ka runahay runtu ay tahay madaxweynahan iyo dowladdan iyo xisbigiisa uu musharaxa ka yahay mujaahid musabiixaad ay maxaan ku dhahdaa intuba ay heegin u ahayd waxaa markhaatiya waxaasoo bishan ku jirna 21 waxaa iman doona halkan wafdi ballaaran oo ka socda jimciyadda qurumaha abaaraha ee madaxweynaha iyo dowladdiisu ay qabanaysay sideedii bay u hadlaysaa hawshaa sideedii baan uga seexanayn sideedii bay maxaan ku dhahdaa dadweynaha baaqda ugu diraysaa iyaguna ay hal habeen maxaan ku dhahdaa diyaar weyihiin waxaana la wadaagayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta ay ka ku nool yihiin inay og yihiin madaxweynahooda iyo dowladda maanta waxay ka dhowdayeen ka yahay inay yihiin qaar la dabqanaya qaar dareemiya qaar xanuun dareenka camra la qaba walaalahooda ay abaaro haysaan waxa loo wixii ay ka hawlgelayaan ay hadday taakuleenta ay gurmada aan waxba kala hayn adduun weynaha baaqaay uga jeedinayaan aan waxa loo waxay kala hayn aanay jirin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Abdiraxmaan Jaamacaye telefishinka caalamiga ee Rayo magaalada Boorama agaasimihii hore wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maareeyaha cusub ee telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa xilalkii loo kala wareejiyay munaasabadan balaaran ee anaankeeda ricitaan sida weyn loo soo agaasimay markaana u reebanayd si sabootinta agaasimihii guud ee hore wasaaradda warfaafinta iyo maareeyihii hore oo TV-ga qaranka isla markaana lagu soo dhaweynayay agaasimaha cusub ee wasaaradda iyo sidoo kale maareeyaha cusub ee TV-ga qaranka ayaa saaka lagu qabtay mid ka mid ah howlka wasaaradda warfaafinta ku leedahay gudaha Hargeysa waxaana munaasabadan si weyn u soo camiray xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka Salaadiin Cuqaal Duqayti waxgarad iyo shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta ugu waxaa halkaa ka hadlay xubno ka mid ah golihii wasiirada ee munaasabadan ka soo xaadiray runtii wasaaradda warfaafintu ninka xil loo dhiibay ee halka wasaaradda warfaafintu kallaba waxa weeyaan dadkii la yidhi 20 sirka maxaa la mudug ilaahay uma xil qarin warkaa waxa weeyaan waa meel aad loo eegayo oo ninka halkan xil looga dhigaa waa hawshiisu waa adag tahay dhaqanka iyo sidaa dowladday ka mid tahay in marba wasaarad tagto waxaanan u malaynayaa inay tahay waxbarasho iyo dadbarasho labadaba inay tahay leeyahay waagii wasiirka diinta oo qaaftu sheegay abaar baan baan haysa in badan baa la duceeyay ummaduna dib bay isku weydiisay ducadeeda hore loo aqbali waayo maxay naga khaldan baa la yiraahdaa aqoon Jamaal Ali Xuseen ayaa isaguna dhankiisa goobta ka jeediyay erey ku qotomaysay sabootinta mas'uuliyiinta hore iyo soo dhaweynta mas'uuliyiinta cusub halka ku talinaya in barnaamijyo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo oo dadka lagu wacyigelinayo oo in la sameeyo waxaan xasuustaa bedel dawladdiisa aad baray markaa dhalinyarada ahaa wasaaraddaas budget xoog ay yeelan jirtay lahaan jirtay dhankooda waxa iyaguna hadalka la kala wareegay agaasimihii guud ee hore wasaaradda warfaafinta isla markaana xiliga noqonaya agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Aadan Ilkacase iyo agaasimaha guud ee cusub ee wasaaraddan loo soo igmaday Axmed Abakar mashruuca weyn ee imika ilaa hadda Soomaaliland dawladda Imaaraadka ka samayso ee soolarka oo isla ilaahay noo hirgeliyay noo hirgalo oo lagaga raysan doono maahmaahdii ahayd aan ku celcelin jiray marka labada ruux ee la soo agaasimaha mishiinadii ahaa markaas uu gariyo soo tilmaamay qoftiiba la waranaya mid baa yar celisay baa loo waranaya marka taana waxa wixii doontaa soolarka in mataqaana hawshiisaas ku hirgasho waxa kaloo muhiim ah xagga shaqaalaha ilaahay wuxuu noo hirgeliyay in aan ku dadaano in jaamacado maanta 4 iyo 3 qof oo shaqaaliin ay jaamacado ku jiraan oo laba qof oo kamid ah ay yihiin masters hadda kama hadlayo civil service institute-ka taasina qayb waxay ka ahayd barnaamijka horumarinta human resource haddaan shaqaalaha la horumarin qalab wax tari maayo marka taana ilaahay baa inoo hirgeliyay waxa kaloo kamid ah tababaro kala duwan oo ay shaqaalaha siinay waxba details keli maayo waa general oo isaguna ah farsamada maamulka muxuu ahaa qaybaha kala duwan ee nidaamka waxa ilaahay inoo hirgeliyay sanduuq shaqaale inuu sameeyno kaashil 6 qof baa labadaas sanad muddada joogay aan ku caawinay
wasaaradda warfaafinta in la kala wajiyay lagu faraxsanahay reception kaadna wasaaradda warfaafinta ka haysta waxay tahay inay tahay wasaarad loogu talagalay inay gudbiso xog oo gudbiso markaa dadka u baahan. dhankooda waxaa iyaguna goobtan ka hadlay Cabdi Cali Mahdi maareeyihii hore TV-ga qaranka iyo sidoo kale maareeyaha cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay TV-ga qaranka Somaliland Khadar Maxamed Cakule tafdiraha TV-ga qaranka ayaa jeclay aan kusoo saxaaga waasna jooga ansi baa jooga dhammaantiin waan idin salaamaya waxaan leeyahay saamaxnaakum ay u galabgeli weydaan waxay noqonaynaa dad filashada uu jeclaa ee aan hanashadaba ka fikirin in badan baynu lahayn nalooma dhiibin in badan baynu lahayn gurbajoog baa yimid in badan baynu lahayn dad kaloo garanayn baa la keenaa maanta madaxweynihii wuxuu yidhi ajifaale leebiya qaansow dhiibo qoladan xirfadda wasaaradda warfaafintu in badan bay hadleen bal maanta ku eeg ama ikhwaan muslimiin bay noqon sanad baynu ku fashilmi oo dib laynoo soo qaadi maayo ama waxaynu noqon insha allah asxaabadii nebiga sala allahu caleyhi wasalam gunaanadkana waxaa halkaa ka hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxadiid Cadaani isagoona sii sabootiyey mas-uuliyiintii hore ee wasaaraddan xilalka ka hayay islamarkaana soo dhoweeyey mas-uuliyiinta cusub ee madaxweynuhu soo igmaday xilal uga qabtaan wasaaradda warfaafinta. anuu hadal badan halkan isugan taagin inaan u mahadnaqo saaxiibadii halkan la joogay wax kelmado aan ka oranayaa ma jirto. Cabdi Cali iyo Maxamed Cilmiba labada hadalka ay yidhaahdeen waa sax maanta waa maalintoodii waan sii sagooteynaa dadka badan baan soo sagooteynaa waxaan leenahay qaranka iyo dalka jamhuuriyadda Somaliland ayaad u shaqaynayseen hawl qaran ayaad u qabateen ilaahay baa idinka abaalmarin doona ummadiinuna way idinku abaalmaysaa. waxaa xilalkii loo kala wareejiyay agaasimaha cusub iyo agaasimihii hore ee hay'adda shaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland. munaasabadan bilan ee hanaanka dareecitaan sida weyn loo soo agaasimay markaana loo geemgamay una reebanid xilib kala wareejinta agaasimihii guud ee hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland Xasan Aadan Geedi iyo agaasimaha cusub ee dhawaan madaxweyne Silaanyo soo igmaday hay'adda shaqaalaha dawladda Maxamed Ismaaciil ayaa saaka lagu qabtay howlka weyn ee hay'adda shaqaalaha dawladda ku leedahay gudaha Hargeysa waxaana si weyn u soo camiray markaana munaasabadan soo ajiibay xubno kamid ah mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaalaweynaha hay'addaasi Salaadiin Cuqaal Duqayti Waxgarad iyo dadweyne kale waxaana intaa kadib hadal kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Maxamed Cumar Cabdilaahi waxaan waa geed la beerayo dawladnimadiyo nin waliba maalin buu biyo ku shubayaa nin waliba maalin buu abqaalayaa nin waliba maalin buu dhirta hareeraha ka yara jarjarayaa uu hadhac ka yara dhigayaa ninba maalin buu yar ku daraya muddadii aad halkan joogto xasanow tacabkii aan kuugu nimi waa Xasan Aadan Geedi agaasimihii gudaha hawshaan kuugu nimi shaqaalahana ka marag furaayo hoolashan quruxda badan laba ka mido daartan quruxda badan laba ka mido gaadiidka quruxda badan ee wareejinaysa ka mido waxaa dhankooda hadalka isaga daba maray markaana goobta ka hadlay agaasimihii guud ee hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland Xasan Aadan Geedi oo ka sheekay waxyaabii u hirgalay taniyeyntii waa agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda waxyaabaha u qorshaysnaayay sidoo kale halka uu maanta kaga tagay shaqada agaasimaha guud ee cusub Maxamed Ismaaciil أهلا بكم شرفتم والمجد وفى نحوكم والعز يسمو بكم السود ولا تفضل يا مفرم بقول وينيا على الحنان بقول وينيا قلبي فيولان بقول وينيا ولا شغال بقول وينيا حاشا سيادتك قال ما يهمني كوانتين حدي كقاوي على فتي وكلا ما يست وحقول جنيه hay'adda shaqaalaha agabka xafiisyada baabuurta guryaha shaqaalaha ayaa kugu wareejinayaa aan kuu fasirayaa xubin si ay tahay aan kaaga dherginayaa si aad ku qanacaysaa dhankiisa waxay isaguna erayo kooban oo ku qotomay mahadcelin uu jeedinayo madaxweynaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adda shaqaaluhu sida ay u soo dhaweeyeen goobta ka jeediyay Maxamed Ismaaciil agaasimaha cusub ee hay'adda shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaaluhu waxay ku abtirsatay cadaaladda qodobka ugu muhiimsan waxa weeye cadaaladda baa la sheegay inkastoo cadaaladda loo wada baahan yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii ay ahayd inaan anna halkii kala qabsado oon horumarkeeda ka shaqeeyo
shaqaalaha hay'adda ammaanba halka laydinka sheegay sidaa laygu kii sheegay baan u qaadanayaa inaad tihiin waxaa inoo ballana wada shaqayn iyo wada jir baa inoo ballana haddii lahaydmo kiisa waxaa isaguna munaasabadan soo abmeeray gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Somaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geele Dacar isaguna ku nuuxnuuxsaday wada shaqayntii dheerayd ay soo wada qaateen agaasimihii guud ee hore hay-adda shaqaalaha dowladda si weyn u soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee madaxweynuhu soo igmaday hay-adda shaqaalaha dowladda agaasimo guud waynu soo dhaweynaynaa agaasimaheennii guud ee horena si walaalnimo iyo kalgacayl baynu u sogootin mayno oo qof sidaa u qiimo badan lama sogootiyo agteenu ka dhawaan oo mar walba gacanteenu noqon wixii aynu talo iyo tilmaam iyo tabantaabo uga baahanno dadka waxa lagu diray in markay nidaam qabtaan ay yiraahdaan waxaan imiday meesha sidan laakiin wuxuu isagu ka tagi doonaa isagoo wanaajiyay keena cusub ee maadana waxaan rajaynayaa inuu ku dhiirigeliyo wixii hore u qabtayna aw qurxiyo daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo guud ahaanba qodobadaasi waxay ahaayeen warar wixii naga soo gaadhay dalka gudihiisa haatana daawadayaal waxaad u diyaar galowdaan wararka kale naga soo gaadhaya daafaha caalamka madaxweynaha koonfur afrika Jacob Zuma ayay khasab ku noqotay inuu gabaad raadsado kadib markii taandho uu khudbad ka jeedinayay ay ku soo duntay dabaylo xoog leh iyo roobab kala jeexay taandhadaasi halkaasi oo uu Masdar Zuma ugu khudbadeynayay dad xusayay maalinta dib u heshiisiinta fiidiyowga la soo dhigay baraha bulshada ayaa laga arkayay dadka oo kala cararaya iyaga oo taandhadaasi ay xagga sare u fuqday waxaana uu madaxweynuhu si degdeg uga cararay mimbarkii uu khudbada ka jeedinayay ma jiraan wax khasaare nafeed oo la soo sheegayo intii ay socotay dabayshan ku dhufatay Gobana oo ku taala gobolka waqooyi galbeed ee koonfurta Afrika xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa bildaamiyay inuu dhawaan u tartami doono madaxweynenimada wadankiisa Kuuriyada Koonfureed waqtigan uu Master Ban Ki-moon uu hayo xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku eeg dhamaadka bisha December shirkiisii jaraa'id oo ugu dambeeyay ayaa waxa uu ku sheegay Ban Ki-moon in uu xoogaa nasasho ah kadib uu ku laaban doono Kuuriyada Koonfureed waa inuuna ka baaraan degi doono sida u wanaagsan ee uu dalkiisa wax uga tari doono doorashooyinka soo socda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa la qorsheynayaa in la qabto December 2017 laakiinse waxaa dhici karta in codbixintu ay dhacdo 2 bilood gudahood kadib markii uu baarlamaanku u codeeyay in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha imika haweeneyda ah Barki taas oo la xiriirta fadeexada ku saabsan dadku hodmay saameyn ay iyadu ku leedahay Mrs. Barki ayaa lagu eedeynayaa inay ogolaatay saaxiib aad ugu dhow inay ka macaashto xiriirkeeda gaarka ah haddii maxkamadda dastuuriga ah ee dalka ay meel mariso codbixinta toddobaadkii hore lagu go'aaminayay in dacwad lagu soo oogo Mrs. Barki waxay noqon doontaa madaxweynihii ugu horeeyay ee wadankaasi ee isaga oo xilka haya si dimuqraadiyeed ah loo eriyo waxaana doorashooyin madaxweynenimada la qabanayo 60 maalmood gudahooda hadalka Master Ban Ki-moon ayaa ku soo aadaya iyadoo banaanbaxyo ay ka socdaan magaalada caasimada ah ee Seoul maalmahan ayaa la filayaa in dad aad u tiro badan ay iskugu soo baxaan kuwaasi oo weydiisanaya in Mrs. Barki ay degdeg isku casisho isku soo baxan ayaa noqon doona banaanbixii 8aad ee xiriir ah kuwaasi oo laga soo horjeedo Mrs. Barki wasaaradda cadaaladda ee wadanka Ingiriiska ayaa sheegtay in kooxda rabshadaha ka hortagta ay dib u soo celiyeen kala dambeyntii 4 qaybood ee xabsiga HMB ee magaalada Birmingham in ka yar 10:15 habeenimo ee Jimcihii waxa halkaasi loo geeyay in ay wax ka qabtaan rabshado kale oo ay ku lug lahaayeen in ka badan 600 oo maxbuus warbaahinta ayaa fahansan in hal maxbuus ay waxyeello ka soo gaartay intii ay socdeen rabshadahaasi kaas oo isbitaalka loo qaaday kadib markii uu tarar ka galay lafta daanka ku wareegsan waxa
iminka la qiimeynayaa qaybaha kale ee xabsigaasi si loo ogaado khasaaraha inta uu leegyahay. Xogayaha difaaca ee wadanka Ingiriiska waxa uu sheegay in loo dulqaadan doonin rabshadaha ka soo cusboonaanaya xabsiyada wadankaasi. We've been saying for a long time there's been a lack of investment in the system, there's been a lack of staff. Birmingham's lost over 30 staff in the last few weeks through resignations, people just not wanting to work there. It's such a difficult and dangerous job, and the whole service is in crisis. Washington ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay Shiinaha kadib markii askarta badda Shiinaha ay ka qabteen gujis bilaan aqoonta Ameerikaanku leeyahay badda South China Sea. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in wax la fahansan yahay inuu yahay gujis cilmi baaris ay sameeyay oo hawl ka wada biyaha caalamiga ee ka baxsan Philippines. Waxay sheegeen in badmaaxayaasha Shiiniisa ay hore ka dafeen iyadoo markaba ay leeyihiin ciidanka badda ee Mareykanku uu doonayay inuu soo saaro majra jawaab ka soo baxday Shiinaha. Shiinaha ayaa ka carooday markii bishan gudaheega uu madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump su'aal u galiyay sida ay dalkiisa uga go'an tahay inuu ilaaliyo siyaasadda Beijing ee madax bannaanida ku hoos keenayso Taiwan. iyadoo ay weli isa soo tarayso xiisada afka ah ee u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in bishii September ee sanadkan uu madaxweynaha Vladimir Putin uga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta kombiyuutarada ay jabsanayaan hadii uu yiri hadii ay sii wadaan. Madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay in warar dhanka mukhaabaraadka ah ee dalka Mareykanka uu helay xilligii ay doorashada muujinayeen in Ruushka uu faragelin toos ah uu ku sameeyay doorashada ka dhacaysay dalka Mareykanka isagoo isku dayayay inuu u dhaco emailada xisbiga dimuqraadiga ah. Maalintii Khamiistii ayaa afayeenka u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in madaxweynaha Ruushka Putin uu ku lug lahaa weerarada dhanka internetka ah ee lagu soo qaaday ololaha doorashada ka dhacaysay dalkaasi Mareykanka. We have seen a deliberate strategy of surrounding, besieging, and starving innocent civilians. We've seen relentless targeting of humanitarian workers and medical personnel, entire neighborhoods reduced to rubble and dust. There are continuing reports of civilians being executed, and these are all horrific violations of international law. Responsibility for this brutality lies in one place alone, with the Assad regime and its allies, Russia and Iran, and this blood and these atrocities are on their hands. Not much happens in Russia without Vladimir Putin. I mean, this is a pretty hierarchical operation. Last I checked, there's not a lot of debate and democratic deliberation, particularly when it comes to policies directed at the United States. Ruushka ayaa dhankiisa arintaasi si adag u beeniyay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku booriyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Mr. Donald Trump in marka uu la wareego xafiiska uu arintaasi si dhab ah ula tacaalo, inkasta oo ilaa iyo haatan aysan kala cadeyn in arintaasi ay saameyn ku yeelan doonto natiijada doorashooyinka iyo in kale. bas ay saarnaayeen askarta ammaanka ee wadanka Turkiga ayaa la qarxiyay. Baska ayaa siday askar shaqada ka rawaxday sida ay wararku sheegayaan inuu hormariyay jaamacadda markii uu qaraxu dhacay. Wakaaladda wararka ee wadanka Turkiga ee Dongo waxa ay sheegaysaa in qaraxu uu ka dhashay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. Qaraxa ayaa imanaya toddobaad kadib markii 44 ruux lagu dilay weerar bam oo ka dhacay magaalada Istanbul ee xarunta ganacsiga wadanka Turkiga kaas oo ay sheegteen kooxaha mintidiinta ee Kurdiyiinta. Muqaalada laga baahinayay telefishinka waxa ay sheegayaan in basku guud ahaantiiba uu burburay. Turkiga ayaa waxa soo maray tiro qaraxyo ah oo loo nisfeynayo inay ka dambeeyaan kooxaha gooni u goosatada ee Kurdiyiinta iyo waliba kooxda jihaadiyistayaasha ah ee ISIS.
daawadayaal qodobkaasi ayaan ku soo afmeeri doonaa warar wixii dalkiisa daafaha caalamka naga soo gaadhay ka daawanaysaan telefishinka madaxa banaan ee Raya TV warka waxay inii soo tabinaysaa anigoo ah Shukriya Cabdilaahi warka xiga daawadayaal intaanu ku kulmi doono aniga iyo dhammaan intii gala qayb qaadatay warka soo tabinta habeenkani caawa waxaan ugu dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.